horumarka iyo dhibaatooyinka challenge wada socda iskuulku wuu batay oo barigaan joogay cidlo ahaa 40 kala soo quraha arday badan baa soo gashay dadkii baa soo degay magaalada waa ciriiri magaalo ganacsi waa ku soo dhawaatay wadadana banaan bay ahayd dadkii baa babashka batay ganacsi oo hore maray dhulkii waa la dhistay waa ciriiri ardaydu waa ku batay ee markaa wuxuu baahan yahay in inta la bartamo dhaqaale badan lagu dhiso lagu hagaajiyo banaanada loo kordhiyo markaa wax badan way kordhay waqti dheer horumarku dhibaatay suuleeyay madaxweyne waxa jecelahay tayada waxbarashada dawladda mar weyn ka hadlaysay sidaad wax uga qabanaysan waa la dhaliilaa waynu koreynaa dawlad ahaan iyo dad ahaanba tayada maalmo bay isu kordhisay waxa marka dibadaha tacliinta ardayda Soomaaliyeed ka baxda ardayda geeska Afrika inay tartanka xag hor ka galaan adduunkana waa higsanayeen imikana waa si wanaagsan oo soo tagayna dhamaanteed miidiyaheena koreeyay ardaydeena koraysa ganacsigeena koraysa dawladdeena koraysa wax walba wada horumar socdaan oo korayna marka tayadu halkan doonayna ma gaarsiisana oo waanu tartamaynaa aad iyo aad way koraysaa imka aad iyo aad wasaaradana waa ku amaanaya arrinta imtixaanka goob waxbarasho weey goobta waxbarasho imika indhahaaga waxaad ku harkaysay subaxdii haddaad timaadana gabadha maamulaha iyo dadkoo dhan la dadaalayaan xashiish fara badan oo shaqadii dawladda hoose ahaan lahayd maxaa taa korneed war dhaliilo badan baa leeyahay oo marka qaarkood maamulkeena korayo taagdaran mar dhaqaalaheena taagdaran mar garaadkeena guud dadka iskuulka eega oo dhaqaaleeyo oo iskuulka dhowr ayaa daran marka dhibaatooyin badan way jiraan laakiin waxa ka badan intaan hore u maray wanaagsan laakiin halkan imika waxyaalo badan la saxad inaanu saxnaan u baahna way taala aroorubana waa la saxaya wax qofkii nool iyo dawladda waxa noo samaysanaa inaan arooruba wax saaro ila adduunyada marna ma dhamaato tiro toonaad ma noqotee marka dhaliilo waa jira waana saxana hadii la mudane madaxweyne magacaygu weyn waa Petri Koosar waxaan ka socdaa telefishinka Yaryar hatta muddadiyaad xilka haysay waxaad moodaa inuu si u badanayo xarigii siyaasiga ahaa arintaas aad aragtay xarig siyaasi ma aha xarigi dambiilaha badanaya dambiilahana waa la xidhaya ninkii dambi galaha oran waa siyaasiga dambi gali kara dhakhtarka gali kara adigoo wariyaha gali kara baamisriga gali kara dambiila waa la qabanaya si dalka hore u socdo madaxweyne magacaygu waa Luqmaan Maxamed oo ka socda telefishinka bulsho madaxweyne waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo xaaladda bariga gobolka Sanaag gobolkii Sanaag maamulka Puntland madaxweyne si walba waa u galeen muddooyinka ugu dambeeyay waa ku sugnaayeen adna wasiir tagay uu ka soo noqday bal madaxweyne maxaad ka damacsantahay gobolkii baran Sanaag aad iyo aad u fiicantay wariyaasha waxa la yiri maqaarkaash meel xubay ka horsata gobolkii Sanaag balaasaa ka jirto xalay Sanaag waxa ku dooday laba nin oo ilmaadeera oo midna yahay wasiir Puntland midna wasiir Soomaaliland dadkuna meel kasta doodu way ka joogtaa xaq bay u leeyihiin inay iyagu isqanciyaan inay Soomaaliland ku qancaan inay iyagu qaranimada qaadaan reeb badan iyo reer dhahar iyo reer ascaarood adiga Soomaaliland kaaga dhex jecel baday iyagaana dhisaaya iyagaana si socod dalkooda waanu ku ixtiraamanaa waanu ku garab galeynaa Puntlandna culma leeyihiin Soomaaliya iyagana jaar ka nahay wanaag baynu ka doonaa ku wada noolaano xuduudkii gaalada Afrika oo dhan qortay in baa inoo dhaxeeya xuduudka inagu ma inaan sameyn waa isticmaalka Afrika oo dhan ku ay baarad ku dhisan tahay waxaan leenahay walaalnimo iyo wada shaqayn aynu ku bedelo colaad iyo reebel baynu marka dhibaato ka jirta Puntland iyo Soomaaliland waa dhibaatooyinka caadiga ka jira waxa ka daran ka jirta ta gudaheeda ka xun sanad iyo barbo dagaal soo ka socda waxa la isku dilaay garan maayo dagaal qabiiladeed baa ka socda oo aan dhamaanin oo dad ku dhamaaday oo tacliinta ku hagaastay oo horumar ku hagaastay oo ardayda wax ku baranay oo ay wadaan Soomaaliland deegaankeeda beelaha oo waliba daba dheeraaday marka kaasa xal u baahan dhibaatada taa weyn waa tu ay dadka Soomaaliland ee baran iyo laas qoray iyo laas caano jooga ay iyagu wadaan oo baahan la garab galo aad garanaysana Soomaali xad waliba reer ku dhaxdhacay Afrika oo dhan Kongo iyo waad arkaysaa wax ka taagan Uganda iyo Congo waad arkaysaa wax ka taagan gobol walba si la soo haysto xadkii isticmaalku reer ku dhaxdhacay dadkii halka joogay waa dabcan raayay kala duwan bay keenayaan waana Afrika oo dhan dhibaato haysta waliba Soomaaliland dariska bariga jooga aad iyo aad biswaan lagu dhigay laakiin waxa wanaagsan in saxnada gudaheena ee wax lagu dhimayaa aanan garanayn ee dhammaan la ee dadkii ku baaba'ay ee dawladii hawl weyn ka gaaray dhaqaale iyo socodba labada taay weydiiyo ku aan jiraa diiday هاي كراسي واحد شيكتي إلا جوجيي أما دولة جوجيي كباع مشترين وخبرشة بل فاهين ديرادة بالشدة كسي ما يدكسي قار كلها مش كبحية السؤال شيء اللي بعده حوي ما أنت واحد حصة يسا صدق كنت تستنى دكسيات في السجل
أنا واحد دونين إنكم حسوسيو وحان دمين لبعض السنة كهر وقت يقول ثلاثة ذلك هي محمد حد شبراهن عقال واحد كل سياسيين الأوريجينال ومعارض وقت يدور باهين الله هذا الشيء واحد شيءتي إن مدحوينها هذا كنت ماما يا أنتوا دلوقتي تشيلوا إنكم كنتوا لنا يوم هذا يقول محكمة دي هيركاجا هي تليع إذا كقرن هيركاجا هي حرلالين هيركاجا هي بلبانت هذا كنت يكون فديا دادي سيت دلوقتي نادو توات هاي بالمحاد كحسوسها مالمها مدحوينها ركاب كويس سمات دول ذلك waxaan ka xasuustaa waa runta daad ku aadaadi maxamed xashraa cigaalla wasiirka dakhliga ah bariga malaha nin waa lagu sheekay aad u baad joogin waa runta maxamed xashraa inta waa ku canaantay waxaan ugu canaantay waxa qalad u maalinta joogay baan ka qabanayay khaladkaas waxa markii ay salaadiintii faraha badneed Soomaaliyeed ku shireen guriga warsamo ninka barre gurigiisa Suudaan barre ka warrabay oo dad aqal xumo inta u tiriyeen la yiri ciidanka wareer taageera soo raqaaj taageerna ninkii tagay baa qolay wata ku war xaqiiq socotaan meel walaal maxamedna intaan ugu tagay gurigiisa ayaan inta ayaan ka badan ku midiyana ka waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu micid baa wareerada ka qabanaysa hadii sheegis maanta micid aan weerarayo oo salaadiina ama baacimsano guri ku jira oo lagu qaldoon weeraraya jira maxamed xasuur ninkii qaban lahaa ee wasiir dakhligiisa ah ee saaxiibka lahaa ee talo ugu dhawaabaan ahaa ee intuu qabtanay ka daa waanu iga aqbalay waanu ka daayay su'aal anigu kuna mid gasho talaka ku maraysa عثمان محمود وبورمدو والله صادين السمالة كان شربوا كوباقي وليه هي وحق بسنة ليلها دقبرية هي قلبت كمان كحكومة هاي الشركة أصلي يقول صدوي يدلموا وناك بان ورقنا بيلها السومال لانو شركة بيل ور السومال لانو شركة وناك بيكتر الساعة وحنا السومال كم ترس لا بيلوت صدح بيلوت بيري شرية حرب ويه سلطان كنا هو سلطان خير عربتي خير كي سعيد دون الله شركة مبدأ دونا بيقاعد كرا مدحوره معارض كنا قوى كرا wax xurb iyo maxtala ma galay laakiin Buurmadaw iyo inta gartay wax laga rabaa nabadda gobolka sare gaar ahaan ceelafo xam badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kii nabadgelyo darrada lagu xanto kii la ilaahay isaga fidmada wada maaha boqor dadku Boqormadaw buurta u yahay suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokay isna telefoon buu ku wada waxa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhiilaha soo qabto nabadda horseed ka noqdo يا حق عليك تدوان وكيني فراح بدي Soomaaliyeed ku shireen guriga warsamo ninka barre gurigiisa Suudaan barre ka warrabay oo dad aqal xumo inta u tiriyeen la yiri ciidanka wareer taageera soo raqaaj taageerna ninkii tagay baa qolay wata ku war xaqiiq socotaan meel walaal maxamedna intaan ugu tagay gurigiisa ayaan inta ayaan ka badan ku midiyana ka waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu micid baa wareerada ka qabanaysa hadii sheegis maanta micid aan weerarayo oo salaadiina ama baacimsano guri ku jira oo lagu qaldoon weeraraya jira maxamed xasuur ninkii qaban lahaa ee wasiir dakhligiisa ah ee saaxiibka lahaa ee talo ugu dhawaabaan ahaa ee intuu qabtanay ka daa waanu iga aqbalay waanu ka daayay su'aal anigu kuna mid gasho talaka ku maraysa عثمان محمود وبورمدو والله صادين السمالة كان شربوا كوباقي وليه هي وحق بسنة ليلها دقبرية هي قلبت كمان كحكومة هاي الشركة أصلي يقول صدوي يدلموا وناك بان ورقنا بيلها السومال لانو شركة بيل ور السومال لانو شركة وناك بيكتر الساعة وحنا السومال كم ترس لا بيلوت صدح بيلوت بيري شرية حرب ويه سلطان كنا هو سلطان خير عربتي خير كي سعيد دون الله شركة مبدأ دونا بيقاعد كرا مدحوره معارض كنا قوى كرا wax xurb iyo maxtala ma galay laakiin Buurmadaw iyo inta gartay wax laga rabaa nabadda gobolka sare gaar ahaan ceelafo xam badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kii nabadgelyo darrada lagu xanto kii la ilaahay isaga fidmada wada maaha boqor dadku Boqormadaw buurta u yahay suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokay isna telefoon buu ku wada waxa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhiilaha soo qabto nabadda horseed ka noqdo يا حق عليك تدوان
u dhiibay mid baan wireless ma keeni